بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، weli waxaan dhexdu kaga jiraa ayuha alikhwatu wa ayuha alakhawaat mowduucii aan u bixinay ayadoo nabi maxamed lagu ammaanayo sala allahu calayh wasalam, wa inaka la calaa khuluqin cadiim. haddaad xusuusataan fadhigii ka horreeyey waxaanu ka soo hadalnay nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam akhlaaqdiisa ayaanu ka waranay calayhi salaatu wassalaam. mowduucani ama xalaqadina waxaan ka warami doonaa mowduuc aad iyo aad aan ugu baahan nahay. muslimiinta oo dhan baa u baahan, bal gaalada ayaa u baahan, bal xayawaanka ayaa u baahan. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. ma fahamtay mowduucan ka hadlayno? waa naxariista rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. ina araxmata sifatu min sifaat illah. raxmadu ama naxariistu waa tilmaan kamida ilaahay tilmaamihiisa uu isku sifeeyey subxaanahu jala wacalaa. wa min cadiimi raxmatihi, naxariista ilaahay weynankeeda waxaa kamida annahu tacaala arsala muxamada raxmata lilbashariyati kuliha. inuu nebi moxamed soo diray basharkoo dhanna u soo diray liikhraaji annaasi min aldulumaati ila annuur, inuu dadka ka saaro mugdiyada, shirkiga, gaalnimada, jahliga, khuraafada, inuu ka saaro ila nuur, iftiinkana u saaro. laqad jaakum min allahi nuur wa kitaabu mubiin. waa nebiyu nuur ah, waa nebi nuur ah iyo kitaab nuur ah. nacam, afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahdaa am man yamshi sawiya. qof labadiisa indhoodna wax ku arka, labada lugoodna ku socda, ma siman yihiin iyo qof madaxa ku socdaoo lugahana kor u taagay? waa maya. wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala aldulumaatu wala alnuuru wala aldilu wala alxaruuru wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat. ina allaha yusmicu man yashaa wama anta bimusmaci man fi lqubuur. ma siman yihiin wamaa yastawi alacmaa waalbasiir. mid indhoolo ah iyo mid wax arka ma siman yihiin. wala aldulumaatu wala annuur, mugdi iyo iftiin ma siman yihiin. wala aldilu wala alxaruur, ee qorax iyo hoos, kulayl iyo qabow ma siman yihiin. wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat. ma siman yihiin kulayl iyo qabow, ma siman yihiin qorax iyo hoos, ma siman yihiin geeri iyo noolal. intaaba idan nebi moxamed waxaa lala soo diray noolal iyo iftiin sala allahu calayhi wasalam. qaala tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. nebi moxamedow ma aanan kuu soo dirin wax kaleba adduunyada kuumaanan keenin ilaa inaad u tahay ma ahane raxmad caalamiinta, muslimiinta bese ma aha, caalamiinta oo dhan ayuu nabigu u yahay sala allahu alayh wasalam. ummadeenna wuxuu yihi alla mataqaanaa tabaaraka wa tacaala wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim. ilaahay baa yihi tabaaraka wa tacaala nebi moxamedow ummaddan ma halaagayo adigoo nool, adigoo ku dhex jira. wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. inta ay dembi dhaaf ilaahay weydiisanayaanna ilaahay ma cadaabayo tabaaraka wa tacaala. nabigeena sala allahu alayh wasalam yaa ayuha annaasu inamaa, nabigaa yihi yaa ayuha annaas inamaa ana raxmatu lmuhdaa. dadow saad u dhantihiin anigu raxmad baan ahay, midka dadka hanuuniya oo asaga sababkiisa lagu hanuuno ayaan ah. idan naxariista nabigu waa caama, waa jamiican linnaasi jamiica, dadka oo dhan ayay gaaraysaa. wa khaasatan kadalika liummati, nabiga ummadiisana way gaaraysaa sala alla alay salam. xadiidkan cajaa'ib ka badan tilmaamaya dacwada iyo naxariista nabiga dhegeyso. inamaa mathalii wa mathalu nnaasi kamathali rajulin istawqada naaran falama adaa'at maa xawlahu jacala alfaraashu wa hadihi اdawaabu alati taqacu fi الnaari yaqacna fiiha fajacala yanzicuhuna. nabigana sala اllah alay salam, aniga tusaalahaygu iyo dadka tusaalahoodu waxay la mid yihiin sidii nin dab shiday, wakti weliba uu roob da-ay, qof dab shiday, kadibna waxa baalalayda iyo waxa duula ay bilaabeen inay dadki ku daadanayaan. nabigu wuxuu leeyahay aniguna waxaan bilaabay inaan idinka qaqabanayo, halkaa guntiga ah ee suunka laga xidho ayaan idin hayaa buu leeyahay, idinkuna waad ku daadanaysaan.
lacalaka baakhicu nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin. hadday mu'miniin noqon waayeen oo ilaahay rumayn waayeen adu ma isdilay ma naftaadaad halaagaysa ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu alayh wasalam fa haadihi raxma, waa raxmad iyo naxariis cid oga horeysay nabiga aynan jirin sala allahu alayhi wasalam. ayuha alaxibatu fi llah, ayuha alikhwatu fi llah, nabiga naxariisiisu waxay gaadhay alkabiir wاlsagiir wاlrijaalu wاlnisaa wاlqariibu wاlbaciid, mid yar iyo mid weyn, rag iyo dumar, mid dhow oo qaraabo u ah iyo mid fog intaba, bal isidiiqu wاlcadow, bal mid saaxiib ah iyo cadow intaba way gaadhay. nabiga salى اllahu alayhi wasalam naxariistiisu kuma koobno bimakaanin aw zamaan, makaan kuma koobno meel, nabiga naxariistiisa kuma koobno zaman iyo waktina, nabiga naxariistiisa kuma koobno. wainama hiya likuli اlcaalamiin mundu bacaثahu allahu tabaaraka wa tacaala ilى ywm اddiin. nabiga salى اllahu alay wasalam naxariistiisu caalamka oo dhan bay gaadhay laga bilaabo maalintuu alla soo saaray ilaa nabigu ilaa ay adduunyadu ay ka dhammaanayso. arrinkaana waxaan ka arkaynaa inamaa yarxamu allahu min cibaadihi الraxamaa. nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi ilaahi tabaaraka wa tacaala alla wuxuu u naxariistaa oo keli ah addoommadiisa kuwa naxariista shicaarka iyo calanka ayuu nabigu keenay salى اllahu alayhi wa alihi wasalam.